soo dhawaada ninkan gurigiisa oo imaana isagoo qaylinaayo kadib gabadhiisa intay ka hor timaado wuxuu ku dhahaa taaban adiga gabadheeda ma tiide isla markii xaaskiisa intay meesha soo gaartay waxay weydiinayeen maxaa qaldan wuxuu ku dhahaa aniga isbitaalka ka imaaday waraaqadana u jeedina waa tijaabada DNA-ga markii aan baaritaan ku soo sameeyay DNA-ga wuxuu sheegay gabadhan inaan anigu dhalin kadib midaan waxay weydiinaysaa arrintaas sidee macquul ku tahay laakiin meesha waxaa imaanaya midkan hooyadiis waxay taagan tahay naagta mar hore ka shakiyay waxaana dareemay inay wax qarinayso kadib midaan gabadheedii intay wadatay dhinaca isbitaalka aadaysaa si ay hadalka midkan u soo xaqiijiso isbitaalka markay yimaadaan mar labaad tijaabada DNA-ga sameynayaan dhakhtarkuna wuxuu u sheegay inuusan ninkan gabadhan dhalin midkan markuu hadalka dhakhtarka maqlo wuxuu bilaabaa mar labaad inuu gabadha ku qayliyo laakiin dhakhtarka wuxuu ku dhahay isdeji iyada xitaa maysan dhalin gabadha labadooduna waa kuwan ahe way yaabayaan midaan dhakhtarkay waxay weydiinaysaa laakiin arrintaas sidee macquul ku noqon kartaa gabadhan aniga dhalay waa hubaa waliba magaaladeena isbitaal ku yaala ku dhalay asna wuxuu ku dhahaa waa ka xumahay tijaabada DNA-ga been ma sheegi karto haddii aan qiyaasana waxaan u maleynayaa in isbitaalka gabadha ku dhashay ay idinkugu bedelantay arrintaasna waa mid caana badanaan isbitaalada magaaladeena ku yaala wuu ka dhacaa kadib midkan dhakhtarka wuxuu weydiinaa haddii ay arrintaas macquul tahay marka sidee gabadheeni saxdeed ku raadsan karnaa hadda wuxuu ugu jawaabaa hadda inta baxdiin waxaad aadeen isbitaalka aad gabadha ku dhasheen iyagaa xali doona arrintiinne intay soo baxaan isbitaalka imaanayaan kadib gabadhan dhakhtaradaha u imaanayso waxay ku dhehaysaa waa ku xumay inaan warkan idiin sheego laakiin waa saxantiin gabadhiina isbitaalkan idinkugu bedelantay wixii hore beenay haddeeda si dhaba u yaabayaan midaan waxay taagan tahay oo haddama waxaad leedahay gabadhii aad 10 sano korinaysa adiga maadan dhalin waxay ku dhehay isla maalintaas iyo isla waqtigaas gabar kala dhalatay marka hooye waraaqadan hadda qaata waxaa ku qoran hooyada gabadhaas dhashay xogteeda haddii aad dhinaca maamadaas dhibaato kala kulantiin isbitaalka dhexdiina soo geli doono dhinaca kale midaan waa hooyo gabadheeda u diyaarinaysa iskuulkeeda waxay ku dhehaysaa hadda lacag ma haysto laakiin markii aan shaqo helo aniga ka bixinayo dalxiiska lacagta aad ardada kale ugu raaci lahayd xoogaa kadibna way ku guuleysanaysaa inay hadalkaas gabadheeda ku qanciso albaabka waxaa soo gargaraacaya marka kuwii ay dhakhtaradu soo dirtay markii albaabka ka furto hooyada ma nugu wici kartaa ay dhahayaan idina way ugu wici intay timaaday idinku maxaad rabtiin weydiine waxay ku dhahayaan meeshaan waxaan u nimaanay inaan arrin yarkaaga la hadalno arrintaasna wax kale ma ahan kaliya gabadhaadii ku saabsan tahay waxay bilaabaysaa marka inay gabadheeda iskuulka u dirto midkaan wuxuu taagan yahay oo hadda kaligeed miyaa iskuulka u dire gabadha iskuulkeedu meelahan uu ka dhow yahay ku dhehaysaa midana shaqadiina maaha gudahii intay soo galaan waxay isku dayayaan inay arrintii ka dhaadhiciyaan laakiin iyadu waxay ku dhehaysaa waxaan oo dhan waa been laakiinse midkaana wuxuu u sheegaa in marnaba tijaabada DNA-ga aysan been sheegi karin marka gabadhii aad adigu dhashay meel kale ma jirtee waa midda anaga xaafadda noo joogto midda nin adiga haysto intay soo baxaanay gurigooda imaanayaan si ay gabadhooda arrintaa uga dhaadhiciyaan dhinaca kalena hooyadii gabadheeda markay iskuulka ka timaado waxay isku dayayeen inay arrinta ka dhaadhiciso midaan arrintii markii loo sheegay waxay dhehaysaa waxas been waaye ay idinku sheegaysiin aniga waxaan rabaa inaan weligii idinka ilin joogo subaxdii kale way isku imaanayaan si ay gabdhahooda u kala bedeshaan laakiinse labadooduba kuma qanacsana inay waalidiintooda ka tagaan kadib saddexdooda meel geesay u soo baxayaan si ay arrintan uga tashtaan midaana waxay soo jeedinaysaa inay dhammaantood hal meel ku wada noolaadaan si ay gabdhuhu si tartiib tartiiba ula qabsadaan waalidiintooda cusub ayaguna talada ay midaan soo jeedisay waxay u arkayaan talada ugu macquulsan midaan waxay arkaysaa in hooyadeed cusub ay kari taqaana cuntadii ay jeceshahay kadib dhammaantood intay soo guuraan ee hal guriyo weyn soo degayaan si ay ugu wada noolaadaan muuqaalkana intaasoo ku ekaya hadda halkaas soo gaarta leegnoosa soo dhawaada asxaabay cunugan yarka iyo ninkaanaad u jeediin waa walaalo shaleemadaana imaadeen kadib safkaanay soo galeen si ay u qaataan tigidkii ay filinka ku daawo lahaayeen midkan weyna wiilka yarka wuxuu ku dhahaa hadda kadib awowga aan ahay adigana waxaa tahay wiilka aan awowga u ahay wuxuu weydiinaa marka qorshahan aa wadatid maxaa waaye sida haddaan samayna maxaa ka faa'iideynaa marka wuxuu ugu jawaabaa qorshahan anigaa wata waa in ay ku raacdaa sababtoo ah haddii aan sidaan samayna aniga waayeela u egahay lacagta tigidka waa laga yareynaa adigana waa inaa cunug yar iska dhigtaa si lagaaga yareeyo lacagta tigidka filinka ku daawo lahayd kadib midka yar walaalkiis wuxuu weydiinaa ka waran haddii qorshahan lagugu fahmo sababtoo ah adiga qof waayeel ma u eg isna walaalkiis wuxuu u sheegaa inaysan kuwaan waxbaba fahmayn oo marar badan sidaan ku sameeyey waxay imaanayaan marka meeshii tigidka laga qaada lahaa midkii meeshii tigidka joogaa wuxuu ku dhahaa soo dhawaada maxaan ka caawiyaa wuxuu ku dhahaa waxaan kaa rabaa hal tikid maadaama aan qof waayeel ahna lacagta waa inaa iga yaraysaa hal xabba tigid kalena waa inaa cunugan yarka oo aan awowga u ahay soo siisaa maadaama uu jiro 5 sanana waa inaa lacagta ka yaraysaa midkan intuu yaabo wuxuu weydiinaa adiga qof waayeel miyaa tahay isagana 5 sana muu jiraa wuxuu ugu jawaabaa haa waa saxan tahay ma noo jeedid miya adiga maxaa kaa qadan indhaha miyaa la'dahay wuxuu u sheegayaa in ay sii sugaan oo hadda baxayo uuna u soo wacayo ninka isaga ka sarreeyo midkii meesha iska lahaya intuu yimaado wuxuu ku dhahaa waxaa maqlay inaad rabtiin inaan lacagta la ka yareeyo maadaama tihiin nin weyn iyo cunug yar sidaas darteed waxaan u baahannahay inaad i tusto ID-gaaga si aan u xaqiijino inta sana aad jirto ninkii meesha iska lahayo wuxuu ku dhahaa ID-gaygii wuxuu iiga soo lumay dagaalkii labaad ee adduunka haddana maskaxdaydu ma joogto hilmaanshayguna wuu badan yahay ee haddii aan wax beena kuu sheega ha ii qabanin wuxuu weydiinaa marka cunuga awowga u tahay meeqa sanoo jira wuxuu u sheegaa inuu jiro 6 sano ninkii meesha ka shaqaynaya wuxuu ku dhahaa mar dhaweyd waxaa dhihaysa 5 sano jira haddana 6 sano miyaa u bedelatay qorshahaaga maxaa waaye wuxuu taagan yahay sooma idinku dhihin hilmaashaygu wuu badan yahay marka inaa ilooba laga yaabaa ugu dambeyn ninkii meesha iska lahay wuu u ogolaanaya inuu nimankan kaarka siiyo ninkii meesha ugu shaqaynayo wuxuu u sheegaa inuu nimankan kaarkooda ku wareejiyo iyagoo meeshaan luuqa maraya ayuu walaalkiis wuxuu ku dhahaa soo kuma dhihin qorshahan wuu shaqaynaa marar badanaa sidaan ku maray kuwaan intay soo baxaanay meeshaan bahalkan lagu sameeyay imaanayaan si ay u gataan ayna u cunaan markay filinka daawanayaan gabadhii meesha joogtay waxay weydiinayaan qiimihiisa iyaduna waxay u sheegayeen inay halka xabagada
$25 markii ay arkaan inay baashaan aad qaali u tahay midkii weynaa qorshe keenay walaalkiis wuxuu ku dhahay isoo raac intay baxaan banaanka aadayaan 15 daqiiqo kadibna way soo laabanayaan intay alaab soo gataan midkii yaraa walaalkiis weynka wuxuu ku dhahay meeshas muujidido ma la ogolo alaab banaanka laga soo gato in gudaha lala soo galo alaabtii ay soo gateen ee dharkooda ku soo dhex qarsanayaan ugu dambeyn waxay ku guuleysanayaan inay shaleemada gudaha u soo galaan xogaa kadib midkaana garkii iska furaya si uu biyo u cabo waxa arkaya markii ninkii meesha iska lahay intuu u yimaado wuxuu ku dhahay hadda qorshaagii wuu ka fashilmay maxay leedahay isagoo u maleeyay inuu garkiisa u xiriyo ninkii wuxuu ku dhahay maxaa waay qorshaha ka sheekeynaysid muxuu ahay garkiisa intuu taabto wuxuu ogaanaa markii uu biyaha cabayay inuu iska furay garkii oo odayga isaga dhigay ninkii meesha iska lahayna wuxuu ku dhahay hadda waa iska bixi kartaa marka cunugii yarkaayna ma la bixinayo oo waa laga qaleynaa maadaama uu isaga da'diisu yar tahay xogaa kadib hooyadooda intay timaaday waxay ku dhahaysaa banaanka maxaa u taagan tahay walaalkaana aaw shaleemada maxaa u geli weyseen ugu dambeyn waxay ogaanaysaa inuu lacagtii oo shaleemada uu qamaar ku qasaariyay iyo sababtoo banaanka la taagan yahay oo ah inuu nin oday iska dhigay si uu shaleemada lacag raqiisa ugu galo muuqaalkan intaan ku ekay hadda halkaas soo gaartay leegno